waxay soo dheelmadeen aroor hore iyagoo ku rajo weyn in mustaqbalkooda ay ka dhabeeyaan. Waalidiinta dhalay carruurtan ayaa dhabarka u xirtay in ay ubadkoodu helaan waxbarasho diini ah. Goobtu waa malcaamad ku taala degmada Buur-Xakaba, waxaana lagu bartaa kalaamka Alle. Carruurtan yaryar oo isugu jira agoomo iyo kuwa waalidkooda danyar ah ayaa dugsigan ku barta diin iyo maado. Macallin Xasan oo ah wiil dhalinyaro ah, noloshana mustaqbalka leh, ayaa waxa uu carruurtan ku tarbiyeynayaa Qur'aanka Kariimka iyo maadooyin kale oo diini ah. Waxaan ku booqanay dugsigiisa, kadibna waxa uu inoogu warbixiyey xaaladda dugsiga. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayba salaame ummadda Soomaaliyeed dhammaantood meesha sugan. Assalaamu alaykum. Ayba wajiga rognay madraso dugsiga. Ayba jirtay marka hor dugsiga furay ma furnay dad oo gurube oo marka hor furayna dugsiga furay ardayti aan tara galantay wala gabar dadka tabarulayta iyo dadka oo qoomayta walba haysan intii wala gabar inaan furi ilaa hadda yaalo markaas ka xaqusni mayba dhamaan soddon qomar yaan weydii yaalkii amaantii oo jiraan walkan si daajir intaa kadib Macallin Xasan oo ah macallinka dugsiga fadhiya ayaa waxaa gacanta ku hayn jiray dhalinyaro, iyagoo bishiina ay u soo diri jireen dhaqaale yaryar oo kaafin karin noloshiisa. Hase yeeshee markii dambe waxaa meesha ka baxay nolol maalmeedkii Macallin Xasan oo markii hore ay gacanta ku hayeen dhalinyaro qurbi joog ah. Waa kan Macallin Xasan oo mar kale sharaxaya carruurta iyo marxaladaha wax lagu baro. Dugsigan oo markii hore ay dhiseen dhalinyaro jaaliyad ah ku nool dalka dibadiisa ayaa Macallin Xasan waxa uu bulshada Soomaaliyeed u soo bandhigay kaalintiisa kaga aadan carruur Soomaaliyeed oo danyar ah in ay helaan mustaqbal ifaya oo kaafin kara markii ay barbaaraan. Xuseen Cali Geesay, 5 Somali TV, Baydhabo.